بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يال مقال كان وحن اسكدل تاجينا إن صوماليا وشنتي سنة لصودا في فرقلين تشيشيها رناهانتي كبد بعدي انتي اي تلاد ودك هايين ان مدحدي نبضي نول اياها تلمركله waxay wajahaysaa cabsi arintaasi ku saabsan waxyaabaha xasaasiga waxa kamid ah nin qarannimada Soomaaliya dhibaato badan iyo hagardaamo badan u geystay warbixino been ka diyaariyay oo iska leh dabcan daawadayaal sahan research iska leh isla markaana xilligii muddaxileedkii Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore Soomaaliya haatan madaxweynaha cusub iyo waliba xilligii madaxweyne farmaajo labadaba dalka ka geystay hadimooyin badan laakiin ay eryanayeen hay'adaha garsoorka dalkeena Soomaaliya oo markaasi xabsi lagu xukumay isla markaana baxsad ahaa oo la raadinayay ayaa haatan mar kale dalkeena hooyo ku soo laabtay gaar ahaan magaalada Muqdisho inuu joogo ayay warar ku xaqiijinayaan ninkan iyo taariikhdiisa dabcan aqoon-yahano Soomaaliyeed oo falanqeynaya iyo aqoonta u leeyihiin ninkan ayaa daawadayaal ku daawo doontaan barnaamijkan live-ka ee tooska ah waxaase barnaamijkana halhays uga dhignay haddii aad taqaanay gabar madow ah oo Itoobiyaan ah isla markaana aan warbixin ka sameynay maalin ka hor laga cayriyay dalkeena Soomaaliya markii uu ku guuleystay talada waddanka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana haatan xabsi ku dambeeyay oo la sheegayo waliba inuu baqtiyay haddii aad ogeed gabrahaas Itoobiyaanka oo madowga ah waa gabre cadaan ah oo daawadayaal hadda haddii aan Soomaalidu aysan kicin oo aysan iska qaban dalkeena Soomaaliya dhibaatooyin culus u geysan doona haddaba daawadayaal waxaad ku daawan doontaan warbixintan dheer isla markaana kaga faa'iideysan doontaan aqoon dhameystiran waxaan ka codsanaa qofka Soomaali inuu daawado siina faafiyo waa kuma Matt Braden ninka ugu sareeya ee markaasi sahan research madaxda ka halkan ayaad ka daawanaysaan dad badan oo markaasi aqoon badan u leh ayaana inoo faahfaahinaya kusoo dhawaada daawadayaal shaqaashan iyo shantii isaga nin la oran jiray Yaxye oo wada socda oo Allah u naxariistay la dilay Matt Braden markaa wuxuu ka yimid magaalada Hargeysa wuu qayli jiray macawis buu sidan jiray gabadh xaggaas ayuu qabay hay'ad bay wada sameeyeen isaga iyo Yaxye iyo Xasan Sheekh iyo nin la yiraahdo abgaalaho isaguna cas oo maanta dhaweydna madaxweynenimada dib uga gurtay intuu isaraxay magaciisa waan xusuusan doonaa haddii alla idmo markii dambe Yaxye Jibriil baa la yidhaha Yaxye markii la dilay hay'adda loo dhiibay Matt Braden wuxuu ka tirsan yahay dalka Canada wuxuuna ka soo jeedaa kiristaankii halkaa lagu abuuray imikana dadka ahaa ee Mennoniteska la odhan jiray waxa weeye nin dacfaray sida Soomaalida loola shaqaysto sida loo baalkeeyo markii dambana ka mid noqday ICGD International Crisis Groupkii laga cayriyay deedna hay'adan sahan sameeyey habeenkii dhaweyd Xasan Sheekh uu barnaamijkiisii ololaha doorashada u wadayna dadkii uu ka hadlayay uu xusuusta uu qolihii keenay waxaa ka mid ahaa Yaxye oo walaalkii ahaa oo la dilay oo ay wada shaqayn jireen oo ay USU wada ahaayeen marka waxa weeye horta historygu kaa weeye waxa uu meesha u joogana waxa weeye sort of intervention in dalka ay galaan si rasmi ay report uga soo gudbiyaan ay feed gareeyaan magaranaysaa intelligence-ka markaa dalaha danaynaya inay kharash u dhiibaan oo dee kharashka interventionka lagu sameynaya dadka lagu dhexgalaya wararka lagaga soo urursanayo ama wax qabasho ha ahaato ama report lasoo qoraya ha ahaato sida lagu bilaabay markii baryihii dhaweydba heritage lagu bilaabay marka waxa weeye Matt Braden waxyaalihii dowladdii iminka runtii rabtay inay soo celiso dowladnimada iyo sharafta Soomaaliyeed ee u dambeysay dadka geed ku xidhay buu ka mid ahaa
dabeetana wuxuu la shaqaysanayay uuna dee intii ku kacsanaydna markaa iyaga hadda guulaystay oo dee wuxuun iska aad wada garanaysaan oo qaabkay ku wada yimaadeen xildhibaanadu ila hal xaaraanahayn nireerka xalaala ma dhasho ayay unbay ahaydoo doorashadii saasay ku dhacday wixii nadiifta ahaa ee aan qaadan laaluush iyo qurunna waad garanaysaan tiradooda intay ahayd inaha marka aan dhaafo waxaan rabaa inaan ku soo dhowaado fikir wadaad halkan imanka axmed la yidhaahdaa uu ka jeedinaya haddaana khaldanayn oo lahaa mucaaradnimo constructive oo eye opening ah dadka wuxu sheegaysa hala sameeyo kaasaan raacsanahay dowladdani waxay ku timi mucaarad destructive oo dowladnimada soomaaliyeed duulaan ku ah oo aad iyo aad u dhibaateeyey dowladnimada iyo soomaalidii rajadeedii weeye imanka waxa joogaa yelkadeeda hadda cidina ma odhan karta dee waa ka qaadana xoog lagaga qaadaana ma jirto nidaam kale oo lagaga hor yimaadaa nidaamku waxa weeyaan wixii jira ee run ah in had marba lasoo bandhigo nin waliba qolo waliba dalka ay joogto ciddii wax qori taqaanaa inay dee wixii qoraalla ah oo evidence leh supporting document markaad wax samaynayso aad wax sheegayso waa in wax support garaynaya ay jiraan sidii iminka wixii uu qoray maanta dhoweed Jerusalem Post ay qoreen oo ay ka sheekaynayeen musuqmaasuqii dhacay tii kale ee laga shaqeeyay waraaqihii kale la soo saaray iminka berigii abra gabadhii gadabursiga ahayd ee bangiga dhexe loo dhiibay reportkii iminka la qoray hantidii soomaalideed banaanka taallay qoladii lawyerska ahaa ee deganaa maraykanka Washington area la yidhi soo saara dee fashilka noqotay waxyaalahaasoo kale waa evidence jira oo dee loo gudbin karo maxaan ku dhahdaay dadka maaragtay had iyo goor jecel transparencyga iyo accountabilityga iyo maxaan ku dhahdaa waxyaala noocaas marka waxa weeye local politicskana iska jira waxa weeye iminka waxaad moodaa un sheekadu xamaruun inay ku eg tahay oo dee xamar maaragtay un waxa la magacaabayo oo laga yaabo sanbalolshana berita la yidhaaha waxaa loo dhiibayaa booliiska soomaaliyeed baa loo dhiibayaa sanbalolshana waxa weeye iyaduna waa iska nadiib daradeeda iyo qaab daradeeda weeye wax tallaabooyinka la qaaday oo dhan waa tallaabooyin xunxun runtii uuna fiicnaa 4 sano hore rikoorkiisi wadaadkan waa yaallaa wax ka bedelan inuu bilaabo ra-iisul wasaarahan ku sheeka ahee ilaa hadda cidduu doono eeye ee cidduu doono kala diraya ee dhacay beri hore dhacay dee waa khalad runtii waa khalad weeye waxaa inuu joojiyay ahayd lacagtan publica ah ee inta dowladdu meel gaadhayso iyo ambasadoorkan dadkii saa ugu dhex mulaaqanay iska dhex taagan qiimo darrada ah lacagtan obinka halka lasoo dhigayo dadkan maaragtay argoosiga iyo ay kasii daran tahay ciyaalka la shirinaya laleeyahay sidii dowladdii hore loo taageeri jiray ha loo taageero magaranaysaa facebookyada iyo twitterada ha laysdhex taago waxyaalahaasoo dhani waxa weeye waa bilow xun weeye runtii in lagula taliyo oo la yidhaahdo tareen baa uu soo sawiray ninka la yidhaahdo amiir caamir shalayto mise maantay ahayd tareenkii wuxuu soo socdaba soomaali badanna waa saaran tahay yaa wuxuu ku soo baxay 2 waddo qabiila iyo waddo qarana marka madaxweynahana wada madaxweynuhu isagoo qoslaya wuxuu eegayaa waddadii qabiilka halkana waxaad moodaa inuu xaggii qabiilka u yar leexinayo marka waxa weeye hal sawir baa 1 kelmadood ka macroon waa tilmaamada ingiriiska dad walaaladaya oo
وهالجماعة متقانا يي دانتا دلكا إيه دادكا يا شعب كسوماليات مالين طبق كسابسن حالة جود دلكا يا وعي كومده أنا برشلونة الصوماليات وعي جيد وحوسية يعني جراد كيجونا وحوسية جراد كأقونهان ومنكو حوسينا ومن هند ريسيرش إيو reading له أو حقرية وحنا متقانا يي قرأ أو ريسيرش سمية لكن أورا society بنا موجود كانوا واي حلان بدن كواحد شعره إنه حلان أو أما وحين هذا اللي كله ليه ديستان وحنا تاكو دليله sida yani BBC dadka ay u dhageysan jireen dhegta taagi xaafad kasta raadiyo ba iska yaali jiray sida darteed dadka in loo bedelo yani dhaqanka hore in laga bedelo waliba specifically dhalinyarada Soomaaliyeed jaamacadaha kala duwan ee dalka iyo dibadda ka soo baxday hada niga sahan group adina kun qof oo Twitter ka sameeya oo tweet gareeya oo xataa madaxweynaha qaranka tweetkiisa ku tweet gareeya haristu yani uu u leeyahay dalka يعني هدي اللي هلي لها أم بقى إنه سمينه وحفر بدن بقى محايد اللي قبل لا محلول يعني وكو برارو لها يجو بدن كواحد استعمال الجرين راديو قرو أونلاين مركب معارض كأهايين وقيب لي واحد قالتي بروباغندا إيو عايدة إيو قبيالات إيو اسكودر كالكحين يعني شعب كالصوماليين سيدو دكتور حسين شاقي دكتور حسين عيال أن أدفع دويني يعاوي سجى وهريسو إلا سميه حتى بلاتفورم أبا سوشيال ميديا أينو متقنا يي organization كسمينه وسوشيال ميديا هاس سيدا محاي هذي هرفد ميديا وكلا جرو أونلاين وكلا لكن هو أذيجينه يعني ده أنت ومدة صومالية أما وعي ومدة بحكو قرنا بوح كلام هنكدي نروح نسلاف كرنو ومتقنا يي إنتن ضيال وحل صارنو لأن تويتر هذا وحنا نقضي حيالها وين لا يوجد بين كريو ماله فربنا اللي جالسين كريو يودك قاربة أيوة استعمالان إلى فيسبوك يسووا أنا سووا شرطان أونلاين بحاجات كقاركيين أدونا سلوك أنا أي تيمي هي أنا ذلك أي تيجا متقانا محمد وكلاين ووريم دونا لكن هو واحد ربا إن متقانا يلا سميه لأن أنا كان ميت بيدن مركز ليسوت هو dibka dalka ku hayo yani hay'adaha dalka curyaaminayo amniga oo wax fara badan doonaya inuu mataqaanay dibadaha iyo sirta dal qarankaba uu dibadda iyo gudaha uga saaro waxa ka sii xun yani qorshaha uu leeyahay aanu xitaa la gabanin oo ah yani kala goynta dalka oo maamulka SNM ee Hargeysa oo qoy galbeed uu mataqaanay uu garab siiyo isagoo waliba mataqaanay xagga gabar ka qaba oo u fududeysay mataqaanay Soomaaliga inuu barto maybe xitaa meelaha inuu soo galaa hadda waxyaalaha uu sameeyo waxa kamid ah yani dhalinyartii buu waxoogaa sandareero oo lacag ah u qaybiya u dhahdaa sahan group taageera marka taa waxa loo baahan yahay oversitkeedii inaanu isdhigan inaanu noqon dad mataqaanay yani dhididkeena aysan maalna oo dhididkeena cunna dad yani afkaartaas yani dalkooda wad difaaca marka qodobadaas insha Allah ayaynu mataqaanay falaqeyn doona ninkan maal baradan yiraahdo waxa waaye nimankii la oran jiray maartay nimanka una qabteynta ka shaqeyn jiray hubka maartay Eritrea waxaas aniga video waxa daawaday dad sheegaya maartay no videoga waa soo raadin doona insha Allah laakiin niman dhalinyaro oo aan alif xilli la soo qabtay baa jirtay oo ka sheekeynayay waxaan u maleynayaa inuu ma hubo laakiin horta qolada maartay hubka una qabteynta saaray Soomaaliya Eritrea way ku jireen kulay isaga filayaan inuu hayso waayo dadkii tikraga la shaqeyn jiray waa maartay marka dadka tacaddi xataa inay u geysan jireen heer maartay xabsiyada ay ku wareystaan la ciyaabo oo koronteynta lagu qabto loo geeyo oo iyagu wareysay ka qaadaan baa jirtay marka ninkii hadda waxay u muuqataa inuu wadankiisa dhib yar iskaga soo galayo waxa waaye Soomaalidana dhibaato ay haystaa waxay tahay wixii qaranka lidiga ku ahaa salaan imika dadka badan ay yaacaya ama cadowga ah ciidamada iyo marka waxaan la caayay farmaajo iyo fahaadiyo waxaas oo dhan iyaga looma socdo waxa loo socdaa warta runta hadii xaqiiqin marka laga hadlo waa dalka weeyaan nacayb maartay farmaajo ama ciidamo gaar ah ama waxa loo qabo fahaadiyo waxaas ma jiro waa lagu gabadaa waxaas laakiin si guud ma bareeran farmaajo iyo fahaad lama dagaalamayno wuxuu la dagaalamaya waa qarannimada iyo maartay dawladnimada Soomaaliyeed ama dhismaha ciidamada waxyaabahaas oo dhan bisoo maartay dagaalkiisu halkaas ku wajahan yahay marka bulshadu inay fahanto balorta ina waxaan la dagaalamayaa shakhsiyaad
siyaasad isku hayaan ahayne ay tahay dalkooda inuu ninkan maartay liddu ku yahay taa haddii in la fahmo horta muhiim ah dadkan caadiga maartay wax caadi ah nooga dhigaya annaga sahan iyo shaqaalihiisa iyo maad bareeran iyo shakhsiyaadka caadi nooga dhigayana dad laba xaaladood baa jira dad maba garanayaan waxana waa propaganda iskaga haystaan oo aqoon darra ka haysa oo waxa waaye maba fahansanaba dadna iyagoo og bay maartay shaqo iyo waxan ku qanaceen oo dalka in la dumiyo ciidamada la kala diidiyo la dacaadeeyo wax walba la sameeyo way ku qanacsan yihiin marka bulshada intaan ogeyn ee sahan iyo saaxiibadood u haysata wax wanaagsan oo caadi ah in laga wacyigeliyo la baro la sheego waxan waxay yihiin waxa waaye maartay saas loo ogaado kulleeyde xasan iyo maartay waxay soo wadaana waa iska bilow oo wax arkaysan iyadoo maartay andu wari la caleema saarin xasan waxyaabo noo geysanaya maartay meel ka dhacay ee sharci ku tumashada ee ceebta ee maartay dhacaya kulli waa iska arkaysan marka ninkaas 6 bilood iyo sanad jooga kulli tareenkan maartay dhiiq isku bedeli doona isaan ka filayo tareen dhiiqaan noqon doona maartay ilaahay khayr ka dhiga laakiin saa maartay kulli bulshadu qoysasantahay bulshadu waa sas baa umada ku dhacay de qof aan la aamini karin markuu ku qabsadana kulli bulshada ka dareemaysaa marka bal wacyigeenu maartay inuu marka soo jeedo waxa waaye bulshada diyaar ah oo ready ah dagaal ku jirto muuqato oo indhaha wax ku hayso xogaa marka soo jeedo baraarugsantahay marka hurdana wala kala markii indhaha wax ku hayso toosha uu san yahay xogaa waa laga baqay laakiin hadii la aamuso waxa waaye kullana waxa u dhawaaqayna waxa weeye wuxuu naajin bay naga tahay insha Allah سان وحوها أما مات برايدن وحوها نكي حكومة حسن شيخ محمود حلقي لبكوني لبيتون كلا لبكوني لبيتون عدادس كفرح بدن iyo propaganda iyo warxumada iyo very bad public maxaa la dhahaa wajiga xun ka bixiyay xukuumadii xasan sheekh maxamuud iyo damul jadiid waa ninkii maxaa la dhahaa ka qoray xilligii xasan sheekh maxamuud uu joogay in hubka aakaha Mareykanka ama United Nations ama dibadda laga siiyo Soomaaliya bakaaraha lagu iibiyo waa ninkii propaganda noocaas iyo been noocaas uu iska fidiyay maxaa la dhahaa runtii ninkan wuxuu ahaa dowladnimada iyo horumarka Soomaaliya ma aqaan ninkan danta ugu jirta anigu garan maayo laakiin isaga naftigiisii baa apology ka bixiyay markii xasan sheekh maxamuud la doortay inaad tweetkiisaas aragteen in kala garan maayo wuxuu publicly u apologize gareeyay xukuumadii xasan sheekh maxamuud oo xilligaasi runtii lid ku ahaa ninkani ka taasi waa taa qodobka kale aan rabo inaan tilmaamo waxa weeyaan haddii xukuumadda hadda joogta ee xasan sheekh maxamuud go'aansato sahan inay la shaqeyso mashaariicda caalamka ee awal ku cuni jirta magaca Soomaaliyana xukuumadda Soomaaliya magarata ogolaato ama raali ka noqoto in sahan sidoo United Nations departmentskiisa kala gadisan ula shaqeeyo mashaariicda magaca Soomaaliya uu ku cuno research ahaana lagu siiyo in development programs iyo magarata maxaa la dhahaa missions iyo research maxaa la dhahaa waxa la yiraahdo haddii magaca Soomaaliya lagu siiyo xukuumadii haddii xukuumadda xasan sheekh maxamuud haddii sidaa iyadu wax ka qaban weydo ogolaato in ninkan uu dalka ka shaqeeyo waa ka shaqeysanaya ila madaxweynihii dhamaa iyo xukuumaddiisii baa u ogolay I think you understand what I'm trying to say haddii uu isaga u ogolaado cid yani ka istaajin karta inuu ninkan dalka ka shaqeeyo waa adag tahay waayo xukuumaddii baa raali ka ah idinku waxa uu gaadho meelo fara badan laana dhamaantiin isku meel ma joogno meelo kala duwan bayn maxay hayday ku noolnahay meelaha kala duwan aan ku noolnahay ayaa xitaa saameyn fara badan mataqaanay ku yeelan karnaa haddii bulshada Soomaaliyeed wacyigeedu sida uu u socdo muddo yar kooban baa mataqaanay wax ku sii karna xitaa xukuumaddu inay inoo soo istaagto waa wax 70% dhici karaya laana haddii laakiin sidan hadda aan wax ku wadno aynu orna saas ku wadayna aan dad iska qeylqeylaya uma mataqaanay noqonayna sidoo kale waa in language-ka aynu kula hadlayna dawladdeena laanaha waa dawladdeeni madaxweynuhu waa madaxweynaheeni dalku waa dalkeeni language qurux badan oo yani waxna laga faa'iidayo dalkani wax u faa'iideynaya ayaa badanka mataqaanay la isticmaala oo in iskana ilaalino mataqaanay ereyada xanafta leh
oo keeni karaya in dalkan uu yani sii kala tago ereyadaas oo aan wax macno ah inagana inoo samaynayn yani dalkana u samaynayn qofka aan rabno inaanu soo jeedano oo xukuumaddii iyo dowladdii ana yani sii fogeynaya taasi waxay noo keeni karaysaa in aynu mataqaanayey isku duubnideenna iyo midnimadeenna iyo wadajirkeenna uu meel yani sare gaadhi karayo marka hay-addaas waa yani loo baahan yahay yani waa walaal cunay waa runtii waxa doonaha loo sameeyo waan soo dhaweynayaa walaalaha maxamed mahdi iyo dr xuseen marka arrinkaa in insha allah platformka loo qabto waa arrin muhiim ah gabadha waxaa dhacday si aad u jeediinba inay lafo qalalan noqotay caloosheeduna intaas aad ugu jeediin ay leekaatay oo saa u weynaatay waxaana ka buuxa biyo الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان dadka muxsiniinta walaalaheena waa salaamay salaanka bacdi maanta waxaan soo booqanay nuura cabdullaahi xuseen oo ah qof bukaan ah oo jiifta isbitaalkan dhagacade magaalada gaalkacyo dhawaan adiga laba asbuuc ka horna waxaa laga soo celiyay magaalada muqdisho oo la geeyay isbitaalka digfeer ee qolada turkiga baaridka bacdi waxay yiraahdeen gabadhan aad u jeedaan caloosheeda say tahay biyaha ka buuxsamay qolada digfeer waxay sheegeen gabadhan xanuunka jira inuu yahay beerka cilad ka jidho oo in beerka laga bedelo ma aysan xal kala lahayn waxaan rabnaa dadka muxsiniinta ee walaalaheen ah inaan gabadhaas anagu awood waa u weynay aan ku qaadno waxay dantu nala kaliftay inaan walaalaha muxsiniinta ee xisaanka badan inaan u caawino anaano walaalayaal gabadhaan meeshii dhakhtarku caafimaad looga helayo inaad nala qaadaan nala caawisaan ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa kariimka waman axyaahaa fakaannama axya naasa jamiican waatuu yidhi qofka hal naf badbaadiya ilaahay wuxuu noo sheegay dadka oo dhan inuu nafahooda badbaadiyey walaal qaali ka qayb qaada caawinta hooyadan wixii aad awooddo lambarka sare Burhaan Cayne Faarax oo shaashada ku qoran ugu dir sahal service magaalada waa Gaalkacyo wixii xiriirana lambaradaas kala xiriir